caafimaadku waa mid ka mid ah nimcooyinka Ilaahay bixiyo subxaanahu wa ta'ala hooyo Xaawo Ilaahay waxay la ildaran tahay xanuunka dhimirka sidoo kale hooyo Xaawo waxay haysataa qoys ka kooban 5 xubnood oo 4 ka mid ah la ildaran yihiin xanuunka dhimirka maraan ku booqnay xaafadda ay ka degan yihiin magaalada Hargeysa ayaa waxa noo suura gashay inaan la kulanno qaar ka mid ah qoyskaasi ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadashay Aamina Faarax Axmed waxaana ka sheekaysay dhibaatooyinka ay wajahayaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Cali Faarax Axmed oo ay walaalayihiin Aamina Faarax Axmed guud ahaanba qoyskan la ildaran xanuunka dhimirka ayaa qaar ka mid ah waxay qaataan dawooyin aanay awoodin inay soo iibsadaan marka ay ka dhamaato dawadu Cali Faarax Axmed oo ka mid ah qoyska hooyo Xaawo Ilaahay ayaa marka ay dawadu ka dhamaato waxa uu la kulmaa dhibaatooyin badan waxaana ka mid ah dhibaatooyinkaasi inuu suuxo marka ay dawadu ka dhamaato arrintaasina waxay sababtaa inay kaadidu ka socoto intaan la sheekaysanayay qoyskan la ildaran xanuunka dhimirka waxa ay sheegeen in mid ka mid ah qoyska hooyo Xaawo uu ku xidhan yahay cilaaj isla markaana haddii la soo daayo dadka leynayo waxaana lacagta cilaajka ka bixiya dad samafalayaal oo markay arkeen xaaladda uu ku sugan yahay ka adkaysan kari waayay guud ahaanba waxa loogu baaqay ummadda islaamka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed in la soo caawiyo qoyskan dhibaataysan walaal aan iscaawin isla markaana aan u gargaarno keena baahan iyo keena xanuunsanayaba markaas ayaa Allah subxaanahu wa ta'ala ina caawinaya waana hantaa digatay aakhiro waxaad maanta bixiso sadaqadu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka u socda xataa marka uu dhinto waana wax ka horeeya cid kasta oo jecel inay caawiso qoyskan fadlan wixii aad awoodo ugu hagaaji lambarka shaashada ka muuqda